gacanta ayuu meesha xanuunsanaysa ka saari jiray nebigu. madaxu hadduu xanuunaya madaxuu ka saari jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. hadduu xanuunaya halkaa wejigaa wejiguu ka saari jiray. hadday dhabanku xanuunaya dhabankuu ka saari jiray fartiisa. haddii uu xanuunayso laabta ayuu ka saari jiray. wadnaha hadduu xanuunaya wadnaha ayuu farta ka saari jiray. kadibna muxuu samayn jiray nebigeennu sala allahu calayhi wasalam? nebigeennu wuxuu aqrin jiray ducadan. ducooyinka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama ka soo arooray ee uu ku daaweyn jiray naftiisa, ee uu ku daaweyn jiray ehelkiisa, ee uu ku daaweyn jiray saxaabadiisii sharafta badnayd, uu ku daaweyn jiray nebi maxamed. intee in la-eg baad adigu naftaada ku daaweysaa? intee in la-eg baad dhaqankii nebi maxamed qaadataa sala allahu calayhi wasalam? maanta waxaan qaadanaynaa, waa maalin labaad oon qaadanayno duco ka soo aroortay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam oo uu naftiisa ku daweyn jiray, nafta ehelkiisana ku daweyn jiray, saxaabadiisana uu ku boorin jiray inay isku daweeyaan. saxaabaduna ay isku daweyn jireen oy ku dhaqmi jireen, oy nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalka uu sheegay intay qaataan ay ku dhaqmi jireen, kadibna ilaahay ku caafin jiray. kiniin mayna u baahan jirin, sharoobo mayna u baahan jirin, irbad mayna u baahan jirin, in masaaj la geeya mayna u baahan jirin. jidhkoodu wuxuu ahaa jidh kaa caafimaad badan adiga jidhkaaga iyo jidhka saxaabada nebi maxamed iyo ahalka nebi maxamed jidhkooda. bishii ay kaaga baxdo lacagaha ugu badan adduunka ay kaaga baxdo daawo, irbad ay kaaga baxdo, kiniinno ay kaaga baxdo, daawooyin iyo dhakhtar dabawareegii ay kaaga baxdo, caafimaadkaagu wuu hooseeyaa. saxaabadee nebigeenna sala allahu calayhi wasalam iyo nebigeennii tahirnaa ee nadiifta ahaa mid waliba way kaa caafimaad badnaayeen. waxa kalifaya waa maxay? iyo farqiga adiga iyo iyaga idiin dhexeeyey wuxuu ahaa farqiga idiin dhexeeya keli ah waxyiga ilaahay bay isku daaweyn jireen. ayagu ilaahay waxyiga ka yimid ee nebi maxamed sheegay ayuu nebi maxamed isku daweyn jiray, ahalkiisana ku daweyn jiray, xaasaskiisa ku daweyn jiray, ilmihiisa ku daweyn jiray, saxaabadiisa ku daweyn jiray, ayaguna dadka kale ayay ku sii daweyn jireen. waxaan rabaa markaa ducadani waa duco qaali ah. haddaad isku aqriso waan hubaa, waan kuu ballanqaadayaa, waan kuu damaanad qaadayaa haddaad ducadan aqrisato ood isku aqriso inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad xayi ah kugu siinaya. caafimaadkuna waa waxa dhaqaalaheenna aan ku baabi'inay aynu ugu jecelnahay. qofka bini aadamka waxa uu helo waxa ugu qaalisanna waa inuu caafimaad helo. caafimaadku waa shay qaali ah hadduu ilaahay ku siiyo. caafimaadkaas sidee lagu ilaaliyaa? ilaahay baa bixiya. see lagu xifdin karaa? ilaahay wuxuu yidhi ku xifdi inaad ku xifdiso weye. waxaan rabaa maanta inaan kuu sheegay ducadan nebigeennu wuxuu aqrin jiray xilliga uu qof xanuunsanaya u yimaado oo uu soo booqdo, ama jidhkiisu uu xanuunsado nebiga, ama ahalkiisu uu xanuunsado. gacanta ayuu meesha xanuunsanaysa ka saari jiray nebigu. madaxu hadduu xanuunaya madaxuu ka saari jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. hadduu xanuunaya halkaa wejigaa wejiguu ka saari jiray. hadday dhabanku xanuunaya dhabankuu ka saari jiray fartiisa. haddii uu xanuunayso laabta ayuu ka saari jiray. wadnaha hadduu xanuunaya wadnaha ayuu farta ka saari jiray. kadibna muxuu samayn jiray nebigeennu sala allahu calayhi wasalam? nebigeennu wuxuu aqrin jiray ducadan. bismi illaahi arqiika min kulli shayin yu'diika min shari kulli nafsin wa caynin xaasid allahu yashfiik bismi illaahi arqiik. ducada ayuu nebigu aqrin jiray. bismi illaahi arqiika min kulli shayin yu'diika min shari kulli nafsin wa caynin xaasidin allahu yashfiik bismi illaahi arqiik. nebigeennu isagoo gacanta kaga haya qofka meeshii xanuunaysay oo farta ka saaraya meeshii xanuunaysay ayuu nebigu dhihi jiray bismi illaahi arqiika, bismi illaahi arqiika min kulli shayin yu'diika min shari kulli nafsin wa caynin xaasidin allahu yashfiik bismi illaahi arqiik. waa siiqadeeda iyo ducadu qaabkay u soo aroortay waa qaabkaas.
waxaa warinaya imaamu muslim ayaa kitaabkiisa saxiixu muslimka ku soo saaray ducadaas. waa laga yaabaa ayada oo ku timid siiqooyin kale inaad taqaanay, inaad sidan taqaanayna waa laga yaabaa. ducadan xifdi walaal, ku tufo taxliisha ku aqriso. maalan taxliishan oo kalead ku aqrinaysaa, waxaad dhahaysaa bismi illaahi arqiika min kulli shayin yu'diika min shari kulli nafsin wa caynin xaasidin allahu yashfiik bismi illaahi arqiik. candhuuftaadaad ku afuufaysaa ama neeftaada ayaad ku afuufaysaa taxliishii. markaas ayaad ku afuufaysaa taxliishii, kadibna taxliishii waad cabbaysaa. waxaa kaloo samaynaysaa jidhkaagii sidaa aan kuu soo sheegay ayaad u akhrinaysaa. bismi illaahi arqiik min kulli shayin yu'diik min shari kulli nafsin wa caynin xaasid allahu yashfiik bismi illaahi arqiik. ducadaasaan xifdinaynaa. nebi maxamed ayaa inoo sheegay, nebi maxamed ayaa ina baray sala allahu calayhi wasalam. nebi maxamed ayaa isku aqrin jiray, nebi maxamed ayaa isku dawayn jiray. meesha adigu aad ka doonato markaad xanuunsato ee madaxuu ku xanuuno, banadol iyo wax lamid ahoo qandhajabiye ah aad ka doonanaysa, nebi maxamed gacanta shariifada ahee wanaagsan ee dahiran ayuu saari jiray meesha xanuunaysa. markaasuu isku aqrin jiray ducada oo wuxuu dhihi jiray bismi illaahi arqiika. madaxa intuu gacanta saa u saaro nebiga calayhi salaatu wassalaam, bismi illaahi arqiika hadduu madaxu xanuunayo. haddii jidhka kale xanuunayana saasay ahayd. bismi illaahi arqiika min kulli shayin yu'diika min shari kulli nafsin wa caynin xaasid allahu yashfiik bismi illaahi arqiik. kadibna xanuunkii dhannaa wuu ka bixi jiray sida qof daawadii ama olol qaac uu ka baxayo oo kale ayuu xanuunkii ka bixi jiray. ruuxa xanuunsanaya markuu nebigeennu u yimaado ee uu ku aqrinayo ducadanna sidaa ayuu yeeli jiray nebigeennu sala allahu calayhi wasalam. gacanta ayuu saari jiray meesha xanuunsan, ducadaasuna ku aqrin jiray. saxaabada nebigu sidaasay samayn jireen, ayaga naftooda saasay ku samayn jireen, ahalkoodana saasay u samayn jireen. dadka ay diintan sii gaadhsiiyeen oo taabiciyiintii iyo dadka iyagu dacwada ay gaadhsiiyeen ana ayagana saasay ku samayn jireen. maxaa la inaga rabaa haddaba? waxaa la inaga rabaa haddaan nahay ummaddii nebi maxamed ficilkiisii, qowlkiisii, dhaqankiisii inaan yeelanno. inaan dhaqamada kale ee gaalada waynu ku rafaadnay, dhaqaalihii baa inagaga baaba'ay, waxba waa ku gaadhi weynaye aan iska dhaafno. soomaalidu maxay sameeyaan oo dhaqan waa, qofka markii uu ka xanuunsado dhakhtar ayay geeyaan. dhakhtarka markii waxba looga soo qaban waayo, musakanaadkii iyo daawooyinkii, irbadihii, sharoobooyinkii, kiniinadii uu u soo qoray dhakhtarku markay waxba ka qaban waayaan baa la dhihi kacaya oo wadaaddo inoo raadiya qur-aanku aqriya. waxaa la dhahaa waa markii aakhirulmataafkiiba waxaa laga dhigay diintii rabbi subxaanahu wa tacaala. markaasa waxaa la leeyahay qur'aanka ilaahay baa wax caafiya, diinta ilaahay baa wax caafisa, aan u raadina culummo. oo markii ugu horraysay maxaad halka uga bilaabi weyday? ictiqaadkiisaa xumaa. ictiqaadkiisaa wuxuu ahaa inay daawadu wax daaweyso, inuu qofkan daawadu wax u tarayso, dhakhtar inuu geeyuu aaminsanaa. markuu waxba ka qaban waayey buu qur'aanka kula soo cararayaa. soo kama fiicnayn markii ugu horraysayba inaad ku bilowdo qur'aanka rabbi subxaanahu wa tacaala inaad ku dhammayso 14 suuradood 14 suuradood inaad ku aqriso ood ku dhammaystirto, ood adkaartii nebi maxamed ku aqriso, oo taxliil loo tufo, oo taxliishii lagu shubo, oo uu ku qabaysto. maxaad ugu diiday markii ugu horraysay? walidaalika qur'aanku waxba kuu tari maayo aad la imaaday ama aad markii dambe ee aakhirulmataafka ahaa ee sabirtaagwaaga ahaa aad marka dambe aad ku aqrisay, waxba tari maayo. qofkan waa qof xanuunsan, isuma tarin kara adigu marka ugu horraysa albaabka koobaadeed ka bilaabaysa ha noqdo inaad adkaarta ku aqriso, inaad qur'aanka rabbi subxaanahu wa tacaala ku aqriso. wallaahi wuu ku caafimaadi. bismi illaahi arqiika min kulli shayin yu'diika min shari kulli nafsin wa caynin xaasidin allahu yashfiik
bismi illaahi arqiik. ducadaa laazim walaalkayga muslimkaa, walaashayda muslimkaa, ducadaa laazim taxliisha ku aqriso. cab, isku shub, meeshii ku xanuunaysay mari, meesha ku xanuunaysana si gaara farta intaad u saarto. hadduu kansar ku hayo, haddii beerku ku xanuunayo, wadnuhu hadduu ku xanuunayo, hadday madaxu ku xanuunayo, laabtu hadday ku xanuunayso, sambabadu hadday ku xanuunayaan, dhabarku hadduu ku xanuunayo, kelyuhu hadday ku xanuunayaan, gacmuhu hadday ku xanuunayaan, meel kasta oo jidhkaaga ku xanuunaysa, farta intaad saartee ducadaa ku aqri. wallaahi humma wallaahi waad ku caafimaadi, mar dambana xanuunka isku arki maysid. intaad weyse qaadato ood qiblada qaabisho ood 2 ragcadood oo sunna a tukato, kadibna ducadaa intaad meesha ku xanuunaysa farta saarto ku aqri, adoo niyadaadu ay wanaagsan tahay, adoo aaminsan waxyi rabbi subxaanahu wa tacaala iyo daawo ilaahay xaggiisa ka timid inay tahay daawadani. wallaahi waad ku caafimaadi. caafimaadkaa samee, tijaabi. markaad tijaabisana ila soo wadaag insha allah, ummadda kalena la wadaag oo u sheeg. ilaahay ajar buu kaa siin. ducada aad aqrinaysa ajar baad ka heli, isku aqrinta aad isku aqrinaysa ajar baad ku heli, caafimaadna waad ku heli. dadka kaleed usii gudbinaysana ayagana ajar iyo xasanaad baad kaga heli, ayaguna ajar iyo xasanaad iyo caafimaad bay ku helayaan. addaalu cala alkhayri ka faacilihi, qofka dadka tusiya khayrka qof isagoo sameeye ayay la mid tahay. intaasaan maanta idinku soo koobayaa.